السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خيارتا شرفتا بدنا بيجكيغا كحران ولاشين هند عبد الرب halkaad iga daawanaysaan waa channelkaygii kusoo dhawaada meel kastoo joogtaan Ramadaan mubaarak maasha Allah tabaaraka Allah. waxaan ku dhex jirnaa bishii barakeysneed ee Ramadaan. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala inta loogu dambi dhaafo hanaga dhigo. aad iyo aad baan meel kastoo joogtaan ba idin salaamaya. khiyaarta hore noogu xirnayd waxaan leeyahay soo dhawaada. aad iyo aad baan idinkaga mahadcelinayaa sida aad maaragtaa noola socotaan barnaamijyadeena. khiyaarta nagu soo biirtay cusub waxaan leeyahay kusoo dhawaada beejku waa beejkiini. aad iyo aad baan maaragtaa idinkugu mahadcelinayaa meel kastoo joogtaanba dhammaan. maanta waxaan rabay inaan ka hadalno maaragtaayay bal burburka wadankeeni ka jira iyo maaragtaayay sidii dee maaragtaa lagu heli lahaa aan kaga bixi lahayn. marka wax badan baa laga soo hadlay oo bulshadeena maaragtaa dad badan oo iga aragti dheer oo iga maxaa la yidhaahdayay iga wanaagsan iga waayo aragsan aan idhaahday ayaa maaragtaa in badan kasoo hadlay sidii maaragtaa Soomaaliya ku badbaadi lahayd. imikana waxaa lagu jiraa bil barakeysan oo Ramadaan. ilaahay subxaanahu wa ta'aala wadankiina maaragtaa nabad ha inooga dhigo. sansaan khayr qabtaa soo ifaysa insha Allah. mar dhow waa laga baxayaa maaragtaa dhibaatada way dhamaanaysaa. Soomaaliya nabad bay noqonaysaa hadduu Allaha awoodale ka dhigo. ilaahay subxaanahu wa ta'aala awoodaysa isaga ayaa iska leh. ilaahay ba maaragtay inoo xasilinaya inaguna waynu ducaynaynaa. bil Ramadaan ayaa lagu jiraa dalkii oo nabada inaynu maaragtaa ku wada ciidno ayaa maaragtaa ilaahay subxaanahu wa ta'aala aan weydiisanaynaa. bisha barakeysan ee Ramadaan ducada hala badiyo dalkiiyo dadkaba ha loo duceeyo. meel kastoo joogtaanba waxaan idin leeyahay walaalaha khayrka badan ee khayrka jecel ee maaragtaa Soomaalida ah ee Soomaalinimada jecel. ilaahay subxaanahu wa ta'aala meel kastoo joogtaanba ha idin xifdiyo. halkan waxaan dhageysanayay nashiiday Ramadaanka oo aan jeclahay maaragtay marka insha Allah idinkuna maaragtaa ila dhageysta. مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان. مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان. معودك أماني يا رمضان. يومنا معودك أماني يا رمضان. سلامكم يدوبين يا رمضان. مسكين يتاجر بشي لمثوبي سلامكم يدوبين يا رمضان. يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان. مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان. رمان ومؤمن يا رمضان. مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان. nashiidadan yar waxay soo xasuusisaa maaragta maasha waayaan kusoo xasuustaa. ويا مرحبا بك يا رمضان. في مسلمين تذنوبتنا يا رمضان. ويا مرحبا بك يا رمضان. مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك
بك يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان sidii ma ay hore bishii muuminiinta dunuubta ka maydha yaa ramadaan macbuudku ammaanina yaa ramadaan mudnaa macbuudku ammaanina yaa ramadaan islaamku midoobina yaa ramadaan shila midoobe islaamku midoobina yaa ramadaan maasha allah tabaaraka allah khiyaarta sharafta badan beejkayga ku xidhan mawduuceena maanta aan rabay inaan ka hadlo waxay ahayd ilaahi subxaana watacaala horta ramadaankan kuwii loogu dambi dhaafo allaha naga dhigo dadka qaar waxaa laga yaaba inay miisig dhahaan miisig bay dhageysanaysa hindo xilli ramadaana laakiin runtii waan jeclahay nashiidadan yar maaragta ramadaanka ayaan anoo yar waxaan dhageysan jiray maaragta in laga soo dayn jiray sida b b sidoo kale iyo meelahaas laga soo dayn jiro dhageysan jiray marka ramadaan baad dareemeysaa ilaahi subxaana watacaala kuwii loogu dambi dhaafo allaha nagu daro bishan ramadaan aan ku dhex jirno gudaheeda inagoo ka faa-iideysanayna ummadayda soomaaliyeed kole waxaa laga yaaba codkaygu inuu meel dheer gaadho anoo nool ama anoo dhintayba maaragta waxaa la doonayaa inaynu maaragta haddii aan dowladnimo iyo maaragta ayay rabno in wadankii inoo hagaago inuu qof waliba qofka kale walaalkiya uu cafiyo soomaaliduna inay iscafido ayay maaragta ayay meel ku gaari karaysaa oo wadankii nabad wuxuu noo noqon karayaa markaynu inagu iscafino oo uurkaynu iska cafino oo golahaynu soo wada fadhiisano oo dabeetana wixii dhacay way dhaceen yaa wixii dhacay way dhaceen maxay waxaasi u dhaceen hadhihin waabay dhacdee la yidhaahdo marka ummadeena soomaaliyeed ay maxay ahayd toole ay gacmaha isqabsadaan qofkii wax laga qaatay waa la isdhacay waa la isdilay maxay ahayd toole sokeeye ehel baa iswada dilay dad maaragtaye aan kala fogeyn oo famila oo maaragtaye soomaalidu waa famil gebigoodabe ayaa maxay ahayd toole kala gaadhay dhibaato oo islaayay waxaa la doonayaa marka dadkaasi inay maxay ahayd toole cafiska qaataan qur-aankeenana waad ogtihiin inta aayadooda cafiska kusoo aroortay cafisku waa wax aada u fiican markuu qofka kale walaalkii uu cafiyo ilaahay subxaana watacaala ayaa xitaa cafiyaya ilaahay baa ku cafiyaya markaad qofka walaalka ay cafido marka soomaali qabaa-iladooda qoysaskooda qof waa inay isu cafiyaan cafiskaas ayaynu waxaynu ku noqonaynaa dad walaalaa isku jeclaanaynaa ilaahayna subxaana watacaala markuu arkay inaynu iscafinin oo uurka inaan waxba isugu haynin oo inaan isxasdaynin oo inaan isnacbayn oo inaan kala jeesanaynin maalintaas ilaahay subxana watacaala inoo naxariisanaya oo maaragta uu ilaahay subxana watacaala ina siinayaa nabadda geedka dheer inaga fuushay ee dalkeeni maalin walba qaraxa iyo dhibaatadu ay ka socoto ilaahay subxaana watacaala maaragta inta yare inagu hadhay waayo badan oo ka xunbay soomaaliya soo martay inta yare maaragta hadhay inuu ilaahay subxana watacaala inaga dhameeyo oo maaragta ummadda soomaaliyeedna is afgarasho ilaahay ka keeno oo ay noqdaan dad iscafiya oo qofba qofka kale walaalkiya uu cafiyo oo wixii laguu geystay aada qalbigaaga ka saarto oo tiraado ilaahay dartii baanu cafiyey
maalin baa jiri doonta ilaahay lasoo hor istaagaye maalintaas yaa iyo ilaahay hor istaagiisaas ayaan ku cafiyey ilaahay wejigiisaan ku cafiyey qofkaas walaalkaya ama qofkaa waxyeelay ama qofkaa idilay dabeetana ilaahay subxaana watacaala wuxuuna siinayaa amni nabadgeliyo barwaaqo badhaadhe dalkeena barwaaqo iyo badhaadhe badan baa laga sheegayaa lagama sheegaya runtii way ka jirtaa adduunka oo dhan baa indhahaas ay noogu haya waxay naga maqan waa nabadgeliyo iyo is afgarasho dabeetana aynu dalkeennii dib ugu noqono